waxa waaye xildhibaan aadan buuno xuseen MCA Dadajabula ninkii governorkii hore former governorkii shaqada laga bixiyay anaga aan ka bixinay assemblyga sanadkii loo gudbiyay sanadkii committee ay u sameeyeen committee laga bixi committee ay report soo qoreen oo dhaheen ninkan waxay ku haysteen assemblyga waa sax ninkii iida ahaa oo sanadkan intuu bixi anaga aan bixinay iyo maanta saaki waraaq naxli meelahan uu ka qaatay uu leeyahay xafiiskan ku noqona iyo meesha tagay maanta markuu tagay stationkii wixii uu markuu tagay waxa la yiri waraaqahan aad wada waan arkahaynay bal anaga bal aan raadina cadeyntoodii waxaan gurigaas ka gurigiisa markuu aad waxyar joogay hadana xafiisku imaaday oo governorka cusub uu fadhi Axmed Cali Mukhtaar xafiiskii buu jibi haraantintu ku dhuftay oo asaga iyo kuwa la socdeen iyo burburiyeen xafiiska maxaa malaynaa waraaqa fara badan baa yeelay wixii yeelay document qaarkood waa hadda wax weyn oo gacan lagu hayo male way misgraysiin sidii noola sheegay dadka reportka ka soo baxay oo garoonka joogay dadweynaha waxaan u sheegaynaa reer wajeer Soomaaliya waxay tiri geel laba reerti isku qooqan ninkan xil baa la sii 2017 bishii 8 muswa 8 iyo kooro u dhacay buriha Allah asaga uu nasiibay xalaal ku heliya iyo xaraan ku heliyaba Soomaaliya waxay tiri hal boolin nin xalaal ma dhasho markii hadii uu qaati alla uu anfacay nin reer wajeer wax yar oo qabsi baa jiray marka dambana loo dhaafay service delivery loogu talagalay wajeer shaqada uu qabto la rabay uu gafe haduu gafe oo ninkii iida ahaa shaqadiisa uu qaban waa annaga dhowr jeer aan u tagnay dadweynaha u tageen hatta reer wajeer iska dhaafay dad wajeer baan ka iimaanin hatta inta loo tagalay waxaan ka bedel wadankan uu dhumee ninka shaqada haduu qabsan waay annaga waan ka fiirsan waynay hadii assemblyga aan ahay xilka saarnay waan gudunay sanadkii xilka saarnay uu gutay ninkiida maanta uu xafiis tagay oo 70 jir ah haraantu ku dhufanaya asaga iyo dad kale oo goons oo asaga uu watay iyo bilcaamo oo isku mobilize garay oo magaaladan oo iska adiga joogeen wajeer reer wajeer waxaan u sheegaynaa governorka xafiiska fadhiya waa Axmed Cali Mukhtaar gaafana kala ma jiro been yaani li sheegin run haduu sheegay bari Maxamed Cabdi xafiiska imaado xafiiskii maanta uu jibi xoog haduu wax taraya maroodo ba suuq ka adeegan lahaa xoog ma jiro wadanka sharci baa lagu kala wadaa inta wuxuu leeyahay sharciga adkana aan garanaa intana asaga guri riqa war hadii xafiiska laga eri kootini yeela arintada ay taala kootiniga haduu ku noqdo haduu ku diidin iska tag marka taasito kolba dawladda dhinaca security dhinaca walba way fiirsanayeen waxaan u malaynaa si jawaab degdeg waan laga qaadi doonaa wixii oo action ah annaga oo assemblyga joognay oo xildhibaanintii laga soo doortay Wajeer County waxaan u malaynaa ninkaas sheli xumaantii dhibkan ku bixinay wuu qabaa kama soo reynaayo waqti kale ha sugo hadii oo Ilaahay u calfato 2022 kolba reer Wajeer waxaan u malaynaa waxa waaya u malaynaa ayagan aan waansaneenin dadkii iidahay hadii ay noqdaan umal ilowdo haday noqdaan ayaga u taala laakiin haday dad miir qabo ay yihiin kolba god laba jeer waxa la yiri ninka muuminka god laba jeer laga maqan jeer waxaan malaynaa god laba jeer laga maqan doono walaalayaal sida ogsootihiin waxaan u malaynaa ninkan dhibaatada lagu bixiyay waxay ahayd isbitaalkii Wajeer oo ogodeena oxygen plant bahashi oo isbitaalada dhan taale aada counties laga waa oo maxaan u qaadeynaa waxaan malaynaa Elwaq sub county oo Mandera ka tirsan oo sub county sida Hawaasweyne Tarbaja kale ay taali iyo dadka anaga la aadina alxamdulillah today waxaan malaynaa oxygen plant oo Wajeer ka maqneed maanta waxaan malaynaa reer Wajeer ninka imaqlahay codkeyga meel uu joogo bahasha iida aheed already maxay taala isbitaalka wax oo ka jira oo dib maanta ma jiro waad soo tihiin disability lacagteeda 4 sano waxaan u malaynaa waa la keenayo markaan loo keen waa la cunayo war dad curyaan oo jiisis oo sariir saaran qaarkood inala qaar aan hadlaynin xoolahooda ninka boogay kolba xisaab way u dambeeysaa laakiin war inta lagu xisaabinin xisaabi kolba asaga inuu xisaabi waa fiicnad laakiin isma xisaabinin teeda kala climate change lacag ha jirtay oo Donafan lacagtiida waxaan u malaynaa waqtigii dadka award ee soo ay qaateen shaqo ay qabteen caalamku way ka daawanayaan maalin dhow ya Jax Kilby intuu Maxamed u maaday governorha Axmed Cali Mukhtaar inta ka horeysay wax lagu haay oo Ilaahay unto ma jiro waree wajeerow dantiina dad garanaysiin banaankan qorraxay oo tuurintiin oo balaqaydina wala xiraay maxaan u malaynaa waxa ka muhiimsan accountability la yimaadeen war maxaan noola haaya laakiin gadal aragto hadii lagu bururo dhibkeeda ay leedahay kolba dadkii meesha tagay oo dad uun adiga waxa u malaynaa dad yar oo haan awti waxaan lagu kala wadana meesha joogi laakiin waxaan u sheegaynaa dawladda hore bari wax ka bilowday xafiiska waxa fadhiisanaya governorhii last week joogi oo ka soo tagay Axmed Cali Mukhtaar governor kala ma jiro insha Allah reer Wajeer waxaan u boorinaynaa nabadgelyada in lagu noolaado nabadgelyada lagu joogo waxaan beentan la akhrinayo iyo videogan la soo duwayo oo leeyahay waraaqana la soo si waxaan u malaynaa maaniku Maxamed Cabdi istay oo dhaay waxaan waraaqdan u bilaw maalinka la dhaaray maalinka dambeeyay u bilaw ku taagay
wixii wax laga cimranaya ma oho marka aniga waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin nabadgelyada ha lagu dadaalo dhib kale ma jiro waxaan ii caddaynaynaa haweenkan cawge governor Wajir County wa Axmed Cali Mukhtaar yaa la wareerin wixin kale oo hadda oo foodada iska wada oo kii kale waxaan arkay dad badan oo maanta gaariga dhaladiis ka saaran oo iska buuqaay oo kii kale oo hataa staffka ku jiraan qaarkood markii waxyaalaha sharciga wadanka haddii dastuurka qof walba la mariyo waxaan malaynaa waxba ma halawdeen laakiin waxaan leenahay xamaasadda aan jirin lagu wurin nin aan waxba in qabanayna horaanba inaga ugu tacdid maanta aad un qabiil iyo qaab wax daran loo daba istaaga dhibkeeda ay leedahay marka anagii assemblyga iyo governorkii insha Allah shaqada waa wadeena dib ma jiro intaas yaan ku soo gaawinaa intaas baan kaga baxayaa warkeygo aad iyo aad baad u mahadsantihiin governorka wixii bari masbarada ka bilaw shaqadiisa uu gala shaqadiisa way soconay ninkaasna waxa u malaynaa wixii bari ka bilawdo masuuq Nairobi ku soo noqonaa